kuwaani waa kuwo ka mid ah saaxiibadii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam, saaxiibkeennii qaaliga ahaa ee ehelkeenna, nafteenna iyo nolosheenna dhammaan asagaynu ka jeclayn. nebiyullaahi moxamed oo wax walba aan ka jecelnahay sala allahu calayhi wasalam, saaxiibadiis yacni saxaabadiisii u gargaaray ee wax wanaagsan dhammaantii mutaystay iyo ammaan ee ilaahay qur-aanka ku ammaanay. nebiyullaahi moxamedna sidoo kale qaybo ka mida weeye saxaabadiisii iyo naynaasahay lahaayeen. abubakar sidiiq waa midka ugu fadli badan ummaddan ummatu moxamed markii nebi moxamed laga reebo calayhi salaatu wasalaam. laakiin in badanoo dadkeenna ka mid ah abubakar bay u yaqaanaan, abubakar sidiiq bay dhahaan. taasi waa laqab ama naynaase, laakiin magaciisa ma yaqaanaan. magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdullah. ninka la yidhahda abubakar sidiiq magaciisu waa cabdullah ibn abi quxaafa, aabiisna waa cuhmaan. waxaa ku xiga halyeygii kale cumar ibnulkhadaab, ilaayaa ka raalli noqdee. cumar ibnulkhadaab magaciisa waa kaasa, laakiin naynaasiisu waa maxay? faaruuq, yacni alfaaruuq, cumar alfaaruuq. waxaana loogu bixiyey xaq iyo baadilkii buu kala saaray. maalintuu soo islaamay quraysh in badanoo ka mida niyaddooda waa jabtay, kumay soo dhiiranayn saxaabadii nebi maxamed ee qaarkood ay tin jilicsanayeen. nin awood leh oo maka awood ku leeba ayuu ahaa cumar. way wada niyad jabeen quraysh markuu soo islaamay cumar. dad badanna waa soo islaameen. abubakar sidiiqna waxaa loogu magacaabay kii rumaynta badnaa markii la dheelmay nebiyullaahi moxamed ee 7 sano la geeyey, ee la dheelmay oo baytulmaqdis la geeyey, ayaa isla habeenkii maka lagu soo celiyey. subaxiina quraysh waa rumaysan kari wey. ma baytulmaqdiska naqaanay baa hadda kaga soo noqotay saacado gudahood? mayay dheheen. bal abubakar baan weydiinaynaa bay dheheen. abubakar oo saaxiibkaas sidaas buu leeyahay, maxaa ka jira? waa runtiis buu yidhi. khabarkii samadaan ku rumaysanay oo ka qaadanay ee ka rumaysanay xaggee joogaa dheelmitaankaas? ilaahay ka raalli noqdo. waxaa kaloo ku xiga cuhmaan ibnu cafaan, magaciisa waa kaas, laakiin naynaas buu leeyahay dunnuurayn, kii labada nuur u saaxiibka ahaa. maxaana laga wadaa? waxaa laga wadaa 2 gabdhood oo nebiyullaahi moxamed uu dhalay ayuu guursaday. bal yaa ka sharaf badan? ilaahay ka raalli noqdo. manqabadaas iyo sharaftaas cid la wadaagto insaana, kuwa dambe iyo kuwa hore ma jiraa. yacni 2 gabdhood isla markii ma guursan, mid buu guursaday way ka dhimatay, tii kalea nebi maxamed ugu daray oo yidhi tanaan ku siinaa, tii kale kaday kaa dhiman. soo nin qiimo le ma ahan marka? haweenka agtiisa qiimay ku lahaayeen. nebiyullaahi moxamedna sidaasuu gabadhiisii labaad u siiyey, laanna nin sharaf loo dumarka sharfa ayuu ahaa. rasuulka ilaahi waa sharaf. dunnuurayn buu la baxay 2 gabdhood ee nebiyullaahi moxamed sababtooda. 2 nuurkii u saaxiibka ahaa. waxaa kale ku xiga cali bin abi aalib, magaciisa ama naynaasa loo yaqaan waa alimaam. waxaa kaloo ku xiga azubayr ibna cawaam, waxaa loo yaqaanaa xawaari rasuul, saaxiibkii rasuulka ee dhowaa. waxaa kaloo ku xiga saxaabigii la odhan jiray abu cubayda ibn aljaraax, naynaas buu leeyahay amiinu lumma, dadka kii loogu aaminsanaa. waxaa kaloo ku xiga ilaahay ha ka raalli noqdee xamzata ibna cabdilmutalib, adeerkii rasuulka wey sala allahu calayhi wasalam. waxaa loo yaqaanay asadullah, libaaxi ilaah, geesinimo iyo karti u lahaa daraaddeed. muscab ibnu cumayr, safiirkii islaamka, kii ugu horreeyey lasoo dirsaday wey islaamka dhexdiisa. cabdullaahi ibn mascuud, turjumaan alqur'aan, kii qur-aanka turjumay wey. bilaal ibn rabax, mu'adin arasuul, kii rasuulka ilahi u addimi jiray wey sala allahu calayhi wasalam. xudayfata ibnu yamaan radia allahu canhu, saaxibu siri rasuulillah, sirta rasuulka kii haye wey, yacni nimanka munaafiqiinta ee nabiyullahi moxamed ilaahay u sheegay ayuu u sheegi jiray. mucaawiyata ibn abi sufyaan, kaatibu waxyi rasuul, waxyiga rasuulkii qori jiray wey, yacni 12 saxaabi ee waxyiga qori jiray ayuu ka tirsan yahay. zayd ibnu xaaritata, xibi rasuulillaahi, kii uu rasuulku jeclaa. qofuu rasuulku jecel yahay miyuu khasaarayaa? maya. cabdullaahi ibni cabbaas, xabrul umma, aqoon-yahankii ummadda nebi maxamed ayuu ahaa. xasaan ibnu thaabit waa shaacirkii rasuulka ilaahay, suugaanyahankii weeye rasuulka ilaahay difaaci jiray. khaalid ibnu waliid, seeftii ilaahay ee galka laga saaray wey, sayfullahi almasluul. jacfar ibni abi aalib, abulmasaakiin, aabbihii masaakiinta. ilaahay ha ka raalli noqdo dhammaan asxaabu moxamed calayhi salaatu wasalaam radia allahu canhu. kuwo kale iyo magacyadooda iyo naynaasyadooda intaan iskugu imaanayno fii amaan illah. haddaad ka mid tahay dadka si fiican noola socda, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay la jirkaada. haddii aad tahay markii ugu horraysay inaadna dhegaysanaysid oona daawanaysidna, ha hilmaamin inaad channelka ku soo biirtid oo sabskrayb tiraahdid si aad u heshid wixii cusub wakhtiga uu soo dhaco, kuwii horena aad oola socotid.